بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي برو سلامي انت عدكي وقارو سلام كبادي waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin baryaha socotay oo step by step soo socotay oo la nagu dayay oo imika haddii la ku roon yahay dee la cadaystay. wuxuu yidhi nuur laangare ingiriisku halku awr marinayo irbaddu ku daya irbadii baa lagu daya awrkii baa la rabaa in la mariyo. waxaa laga soo bilaabay Somaliland la wada leeyahay oo dhagahayga ka badatay in badan waxay ku dambeysay oo isku fuuqsatay ma jirtaba in la yidhaa iyo reerbaa leh iyo reerbaa samaystay iyo reerbaa uu nin xildhibaano oo kursigii ku fadhiya oo aan cod ku soo bixin oo isxambaar ku yimi oo ilaa maalintaa ilaa maanta halkaa ku cunayay wixii waddanku lahaa iyo cashuurtii dalka inuu sidaa ku hadlo dee way u gaadhay. marka kii xilka hayey uu sidaa u hadlayo kii shicibkaana dee hadalkii baddaa haddii aanu aaminsanayn dee inuu iskaga tagaaba ila waxaad aaminsantahay lama dhex joogo waa laga tagaay oo waa lasoo jabhadeeyay ama waa lasoo mucaarada ama dee halka kale adigu aad is leedahay way ka wanaagsantahay baa la tagaa. laakiin adoo dhex fadhiya dee inaad saa hadashaa oo kuu doqoniimo aan ku noqon Somaliland la wada leeyahay baa dhageyna ka badatay. Somaliland waa la wada leeyahay Somaliland waxaa ka dhacay geeska Afrika kama dhicin mandaqada aynu ku noolahay wallahi baanay ka dhicin. waana cadaynaya fartaan idinku fiiqaya Somaliland dagaal baanu ku qabsanay waxaa la noo geystay waxaan ummadda loo geysan Soomaaliyeed kale oo noo gaar ahaa intii runta la isu sheegay intii ilaahay iskaaga baday ee aan wada noolay in dad isugu xignayna way naga raacday xukunkii. markay naga raacday taayadii bay noqotay waanu duminay xukunkii oo waxaan ku duminay military iyo xoog baan ayaa la soo adeegsaday. ilaahay taayadii buu ka dhigay waanu argoosan jabhadihii waddanka qabsaday Soomaaliya oo dhan bay qabsadeen dhulkii la isku oran jiray koonfurtana way qabsadeen halkana way qabsadeen. koonfurta iyadoon hawiye loo geysantii la noo geystay oo aan cid laga diloon la bamgarayn ayay aarsadeen idhahdeen yaa daarooday qalad bay ahayd sax may ahayn dadaan waxba galabsan ayay raadkooda guranay gumaadeen laayeen. waa taa maanta cuqubadii socoto weli sax maaha labada ka samra ee qaladka lagu gelay ka samra ee ilaahay ku dhaafa ayaa la qaatay bini aadamka may dhicina way argoosteen suxun bay argoosteen wata dhibaatadii maanta haysta weli tan aynu joogno laguma kala argoosan kayra waa lagu kala argoostay been buu sheegaya walaalnimo iyo xalay dhalay baanu ka bilownay oo wala xisaabxay halkaas shir la isugu yimid cid looma kala maqnayn cid la qasbiyay ma jirin. Somaliland waxaanu ku weynay hal qarni waxaanu shaqaysanaynay iyo kumaankun qof guri wal oo isaaqleeyayba maanta dad baa ka maqan dunya waxay shaqaysanayeen oo ka maqan mahaarif fudud ninka aan maanta xisaabtamayno annaga ku xasuusinayna iyadoon dhimasho ku gaarin oo dhaqaalahaaga la burburin oo aad iska fadhiday halkaa inaad maanta nagu dul socoto isla ku dul soco oo nagu toojar garayso Somaliland la wada leeyahay ku socon mayso. Somaliland waa la wada leeyahay gob baanunay Axmed Maxamed Siiraayo waa Nelson Mandela hayaga isaaq markii Nelson Mandela ugu jira isagoo ministra oo shaqo wanaagsan haysta oo raaxa ku jira ayuu ficil markii dadka Soomaaliyeed uga yimi Soomaaliya oo meelaha waxba oo limbuyi duur buu galay kudaafad buu jiifay ficil baa keenay
daahir riyaalo ka soo horjeeda xilliga ayay kursiga ku tartameen codka lagu guulaysanayo iyo cidda madaxweynaha dooranaysaaba aqlabiyaddu waxay ahayd isaaq axmed bay ka codeeyeen isaaqo waxay u codeeyeen daahir riyaalo ku guulaystay wuxuu waddanka hayay 3 meeloodoo meel marka Soomaaliland inta jirta la xisaabiyo 3 meeloodoo meel buu hayay Soomaaliland in la wada leeyahay taas cadeynaysa gobonnimada aanu leenahay taas cadeynaysa inaanu dadkayga waddanka nolada leh ee aan isaaq ahayn wax la jecel lahay taas cadeynaysa marxaadka Soomaalida kala soo qaadanaya Soomaalida kale dir iyo raxaweyne ugu ballaaran cid ka badan Soomaaliya midkoodna ma kama noqon ra'iisul wasaare madaxweyne cid buu xiray Puntland waat agtiina محمود سليمان بيحرم حتى مجرتين كلام ما أقرأ سواء أخرون لها على سليمان لها يوقع سليمان لها هي هرتي كرتونة ما أقرأ ويروى قضب جيبوتي وطن بأكتين أفرتني يسمتك بيحرم ماذا كسور اجتماع أنت قالتي قويس باهيستا قويس كاس حتى أغلبية هي مجورتكم هايستو حق بكويستا ورشا كمان عضو إثيوبيا وشاركينا قوميدا بدن badkan 4 qoomiyadood prime minister ka doorto mid shanaad ma doorato qoomiyadaha kale marka xuquuqdoodii ma helin waxa doorta Dhabuub Spooch oo shucubta koonfureeda oo qoomiyada badan isu tagaya Oromo Ahmaro iyo Tigray 4taas uma prime minister ka doorto ninka aan ogeyno anaga huu sheegay ka daba tago soo ogow dad xoogi Suudaan waa taan ogin dad ninkaas joogay kuwii ka horeeyay mandaqada aynu ku noolahay Eritrea waan ognahay xuni baaysta suuqa sanadood ku dhawaadka mandaqada aynu ku noolahay halka Soomaaliland gaadhay wallahi inaan cid gaarin dawaylka waaweyn weligood jiray gaarin itraafka haysta waxa laga inta ka badan la raadiyaa waxa weeyaan waa waaliyada qoniimo Soomaaliland waa la wada leeyahay kubadii banaanka la dhigay in walow Britain baa la yiri ninkii uu furanayo wiilkan baa la yiri ninkii hadii la ku reeyo madaxweyne u tartamayo wiilkan baa la yiri kii baarlamaanka u tartamayo adiga farxinimada iyo orodkaaga cid gumeysata iyo cid laandheero sheegata iyo cid aqlabiyadu sheegata iyo cid xog ku haysta toona ma jirto waxa ogeeyay ninka lagu yiraahdo xagla toosiyay madaxweyne ku-xigeenkii imika fadhiyay Cabdiraxmaan Sheelici oo awoodii kursiga madaxweynaha ku fadhiyo ku-xigeen ku fadhiya ayuu kula tartamay xisbiga dhexdiisa oo hadateeyo daqab ku baxsan ka qaadaba dimuqraadiyadda kamid dalka dimuqraadiyadda ka jirta xalaala oo aan geeska Afrika ka jirin ama Afrikada ba ka jirin wax badan way dhiman wax badan way qaldan yihiin laakiin meel xun joogno war ninkan nagu hadidaya maanta isaaqow waan haysataan iyo waan gumaysanaysan waa beenaale isaga daalac raba isaga saayid raba isaga xumaan raba anagu ma ninta lagu dul socon karo inta garanaysa ka badan garanayna laba halgama waddanka la galo labaduba anaga gaar noo haay labada halgama la galo waa kii waddanka lagu qabsay laga xoreeyay daaqoodkii afka ciidda loo daray gaar buu noo ahaa kalibu noo ahaa kuwa kale anaga la dagaalamay halganka labaad wuxuu ahaa siro laga soo bilaabo arintii iyo adduunkii waddanka lagu dhisay iyo maalkii lagu dhisay maal isaaq buu heer kale oo keenay maanta keenay ma jirto lagu wada hadna lagu wada dhuuqayaan lagu wada dhuuqo ogol lacagtii tijaartii Djibouti in ay ka soo qaaday taasoo investment ku galiyay waddanka ciidamada lagu dhisay oo maamulka jira lagu dhisay oo waxa maanta aynu haysanaa bartii laga soo halkaas ahay arrintan isaga lahaa adduunka tolkiiba ka soo qaaday waxa weeyaan war labadii halgamo gaar bay noo haay kii lagu dhisay waddanka iyo kii lagu xoreeyay in la nagula dhuuqo oo la yeeshana diyaar baan u nahay gunmanihiin gob baan waxa aan gob ahayn ka gobonimadaas u muuqan weeyday balaaran ee muuqatay aan la qarin karin
hargeysu ka dhex hadlay nin gabooye ah oo reeshiyaashiis wanaagoo suldaan sheegto madaxa ku gurta bakti iyo shimbiro uu soo cunay iyo xayawaan meedhan ku sita madaxa ee dhogortoodii iyo hargahoodii iyo saamahoodii iyo geesahoodii sita hargeysu ka hadlay wuxuu ka ammaanay farmaajo wuxuu ka ammaanay siyaad barre wuxuu ka ammaanay dowladda xamar oo yidhi cadaalad bay taalla somalilandna wuxuu yidhi madaxweynaheedii la doortay aqlabiyadda lagu doortay wuxuu yidhi aniga madaxweynehii maaha waxaan ku qabnaa dulmi waa munaafiqa daaga oo beenaala ah hadduu maalintii u dhalan lahaa xamar oo intuu hawiye ka hor iman lahaa ku soo noqon lahaa way xasuuq lahay way muqmadeyn lahaayeen xamar liiskeeda waan hayaa anigu qofkii u baadana waan keeni doonaa 12 baan maranayaa inta lagu dilay ee somaliland ka tagtay ee bari ilaa galbeeda ciisa lagu dilay oo samaroon baa lagu dilay oo isaaq waxaan walba aba lagu dilay oo gabooyahan isagu uu sheeganay waanu ogeynay ayaa lagu dilay kala shaqeysane dhogorta sitay baktiga madaxa ku sitaa xildhibaankiis baa lagu dilay xamar koonfur oo aynaba u dhashay nin gabooyaha ma dhibaan haddii alla kuu roon yahay dadkaa laynaya madaxdoodii weeyaan xamar cadaalad ma taallo cadaaladdaa iyo meel adduunka la midii ma jirto qofka taa ma jeertay tanna wax ka sheega waa qof aan ilaahay ka baqanin oo beenaalaha oo kadaaba wuxuu yidhi kililkaa noo dhaama kililka xasuuqa ka dhacay kililka iyo wuxuu kombeergaraynayey dowladda kililka iyo taxamar iyo somaliland buu kombeergaraynayey labadii kale ayuu ka sarraysiyey kililka waa meesha inta dadka lagu laayay dowladda dadka laysay iyo madaxweynaheedii intuu amray dadka laayay meydkii laga dul dhaanteynayay kamay dhicin soomaalidaayo aadama kamay dhex dhicin ninkaa reer shiish wanaag wuxuu ilaabay kaalintu noo ku jiro markuu sidaa u hadlayana wuxuuna xasuusinaya wax badan oo aanu ilownoonu liqnay hargeysa 88 waxaa ka dhacday 22 nin annagu abaan ilaahay baa saa iga sarreeya waan soomanaya ayaanu ka baxnay meesha lagu dhahay magaalada naasaha lodban ka baxnay 4 nin baan anagu dhaawac ku nahay markaan halkaas mabka tuunbay iga xidhan axmed bay iga taala waxaa dhacday niman kaa sheeshiish wanaag ee xilligaa shiish wanaag la baxay ayaa galay buurta naasaha loo soo dambaysa dalxiiskay deganaayen halkaasi dadka shacib u galeen shiish wanaag waxay ula baxeen dagaal kulamay bixine waxay furanayeen ay baadhanayeen dadka shacibka iyo maatida iyo dumarka oo markay baadhaan kaatuunada kala baxaan iyo dahabka yaraysitaan ayay haddana leynayeen waxaan ugu nimi iyagoo shiish wanaagtaas laayay dadkii oo furtay oo laayay baaqii ka hadhay baan ugu nimi meesha markayna arkeen ayay yaaceen anigu markaa 4 nin baanu kula soconnaa ragga kale meesha warra ku hubaysan anigu ma hubaysnin ragga kale hubaysan oo geel doonayay ari iyo xoolo islamta laga soo ururiyo qiyaastii halkan silaxda ereyadeeda yaal xoolo jooga ayaa ragga doonaya markay bidhaan naga arkeen bay yaaceen nimankii inan baan ugu nimi meel dacara ku gabanaysa iyo dhir waxay ku tirtaa halkaa lagu gowracay wuxuu hayana waa la qaatay dahabkii iyo wixii aan sidinna waa la boobay nimankaa shiish wanaag baa qaatay shiish wanaagtay halkaaga degan baaqigii hadhay baan dadkii kaxayn meydkii halkaan ka tagnay ilaan ma aasi karnay waddada waxaa maraysa faqashtiyo kumanyaahoo beebayowdata ilaa mid hallee halkii baan marka gabolku sii dhacayay ka talowno halkaasaanu isha cobashale ka baxno halkaasaanu ka baxnay anagoo macamaatidii hogaaminayna qaar baa miinan la kacday intaanu sii socon haddana dhexda oo jalfista ay dhigeen la kacday yacni waxaan ka wada waxaasoo dhan baanu xasuusannay oonu iloonanu walaalnimo siisannay inuu maanta siyaad barre ka dhex amaana hargeysa iyo farmaajo iyo xamar oo madaxweyne la doortay inay dhahda aniga madaxweyne ma aqaano waa nadal inteedaan ku sugnay farataagtaagani siyaasaddan isaaqu isku taagtaagaya faraha ayuu run mooday waryaa sidii nama dhuldhicin hobsada baan leeyahay wargo baanu nahay annagu ogol dalka cidda la lehina la noolaato oo ay xaqooda helaan oo ay xukumaan weliba in lana xukumaan xitaa ogola haddaad se ka badbadisaan ogaada inaanaan doqma ahayn dowladdana waxaa leeyahay dadka waxaa ku hadlaya haddaad shaqo ka qaban weydaan nin walba meel baa xanuunaysa gurigiisii iyo hantidiisii iyo dadkiisi waa u muuqda oo kuwii dilay ee ag taagan yihin iyo wax yeelay
war alla kala xishoodo baan leenahay halla kala xishoodo oo nimcada taalla iyo barwaaqada ku jira iyo staabilkaynu karnahay yaan laga badbayn yaan laga ilaahay laga abaalka darin ilaahay yaan laga abaalka darin anagu dad ku baqanaya ma nihin oo lagu handadayo Soomaaliland baan burburinayay Soomaaliland loo dileeyay laguma handadi karo qof walba xaqiisa waa naqaana hadduu soo dhaafana waanu naqaana waan islaamiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halla kala xishoodo